بسم الله الحمد لله السلام عليكم أصحاب channel كي كحرن ومركلي ولاشين سارة مقال عصب waxaan rajeynayaa inaa caafimaad qabtaan xabaabteyda soo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale oo xiiso leh maasha Allah tabarakallah qaabkaas ugu dambeyn ku soo baxay waxaan rajeynayaa ka wada heli doontaan oo aad ka wada faa'iidi doontaan cidii daneynaysa insha Allah taala cidii taqaan Ilaahay u barakeeyo intii aan aqoonin soo dhawaada xabaabteyda maasha Allah tabarakallah hab fudud u diyaarsan kartid hadii aad caafimaad qabtid hilibka waliba aad ugu karsan kartid waa maasha Allah tan ku soo dhawaad waxyaabaha aan ka diyaariyay iyo qaabkii aan u diyaariyay ka faa'iideysi wanaagsan halkan waxa ku heystaa hilib ari maasha Allah tabarakallah hilib ari kabsar xawaashiyo laba nooc oo aan soo shiidi doona insha Allah aan soo dubaaya waxaan kaloo heystaa basal qiyaastii intaas iyo hal xabbo toon oo qayb isku xirana bariiska noocaas ayaan isticmaali doona insha Allah taala intaas ayaan isku soo diyaarinaya insha Allah hilibkana karis badan ayuu u baahan yahay habka ugu fudud oo karsan kartid maasha Allah tabarakallah biyo dabka ay isi saarayeen maanta banaanka ayaa lagu soo karinaya insha Allah taala hilibkan wuxuu u baahan yahay karis badan digsiga ayaan ku soo shubaa insha Allah asxaabi sida wada arkaysaan digsiga ayaan ku soo shubay biyo markay ay soo kululaadeen xoogaa cusbo yarna waan ku soo daray maasha Allah tabarakallah sida wada arkaysaan hilibka ayaan ku soo shubay hilibku soo karkara ilaa uu ka bislaado maasha Allah tabarakallah ilaa uu ka bislaado ma soo duubi kari inta waad ka saysaa waana dareemi kartaan hilib waqti badan ayuu qaadanaya qiyaastii waxaan ku soo karnaa insha Allah 2 saacadood ayuu saarnana insha Allah daboolka ayaan u jiidayaa qiyaastii maasha Allah maraq ayaan ka bixinayaa biyaha qiyaas fiican waaye bariiska ayaan ku soo karsan doonaa insha Allah sidaas waxaan ila soo xabaabtayda markii uu noo soo karo digsiga aan ku shiili lahaa oo dabka aan soo saaro oo saliidda ku soo shubo ayaan isku soo laabanaynaa biidhnillaahi taala asxaabi 2 saacadood kadib hilibkii markii uu dabka saarnaaday uu noo soo karay maasha Allah tabarak aadna ma u bislaanin way dib ayaan u shiili rabaa saliidii aan dabka soo saar way soo karkaraysaa sida wada arkaysaan waxaan ku soo darayaa insha Allah taala basashii aan soo diyaarsaday oo ii jarjarneed insha Allah sidaas waxaan ila socdaa xabaabteeda insha Allah xarajeenaa wada casharka fahmi doontaan biidhnillah haddana basashii aan ku soo bilaabay ku soo darayaa sida wada arkaysaan maasha Allah tabarakallah waxaan kaloo ku soo daraa insha Allah taala basasha markii cabaar ay saarnaatay kadib xawaashidii aan isku soo shiiday wax yar kamid ah qiyaas kamid ayaan ku soo darsanaa insha Allah qaabkaas ayaan ku soo wadaa insha Allah taala tan waxaan ku soo daray kabsartii toontii aan isku soo tumay sidoo kale iyadana maasha Allah ku soo daray intaas ayaan istaxmarnaa insha Allah markii aan hilibku ku soo shubo ayaan isku soo laabanayna insha Allah taala qaabkaas ayuu noogu soo karay xabaabteeda wada arkaysaan hilibkeeni quruxda badan leh maasha Allah sidaas ayaan ku soo shiilay xillo maasha Allah aad u macaan yahay idinkana soo tijaabiya waad ka wada heli doontaan biseelka kaaga daran maasha Allah tabarakallah qaabkaas ayuu ku dhan yahay xabaabteeda wada arkaysaan هذا تستجيس معايا ما شاء الله سليدي أهلي بك كسر لين بريس كصد العنا إن شاء الله ديك زي كنت تستوى أركيسان بس الكلام كصد شبه إن شاء الله يعرف السكلة وكصد درس ما شاء الله استوى أركيسان هذا بريس كي أنشيلنا يا بريس كي كصد شبه إن شاء الله بايسا wada arkaysaan bariiskii ayaan ku soo shubay maasha Allah tabarakallah waa 5 kg qayb inta kugu filnaadaas diyaarsan karto wax dhibe ma lahan bariiska markii uu noo soo bislaado waxoo dhan aan isku soo diyaariyo oo aan saxanka ku soo diyaariyo maasha Allah tabarakallah hilibku waa soo wada aragteen qaabku noogu soo bislaaday maraqa ayaan ku soo darsanaya maraqaan ka baxsaday hilibka iyo biyo kale oo ii kululeysan markii aan saxan ku soo diyaariyo ayaan isku soo laabaneynaa biidhnillaahi taala si fiidiyowga noogu dheeraanin insha Allah sidaas ayay ku dhantahay xabaabteyda qadqadadeeni maanta ama sabteeni gaabaneed maanta maasha Allah tabarakallah laba saxan ayaan ku soo diyaariyay basbaas jidnigii meesha ma ka maqna maasha Allah tabarakallah mooskii liin dhanaantii jibsigii maasha Allah tabarakallah
qofkii rabo shiniga sida loo sameeyo channelka dib ha u jaleeco shiniga anoo diyaarinaya channelka ayuu ku jiraa maasha Allah tabaarakallah jibsiga sidoo kale qof walba ayaa garanaya waxyaabaha qaar waan ka jaray videoga si waqtiga uu noogu dheeraan maasha Allah tabaarakallah qaabkaas quruxda badan ayaa si fudud ugu diyaarsaday haddii aad xataa casumaad qabtid ama degdeg aad qabtid shiniga oo kale habeenkii aad iska diyaarsadaa fridge-ka hoos la iska dhigtaa wax dhib ma lahan qaabkaas ayay maasha Allah khadani ku dhan tahay maanta oo sabteen yareed ahayd maasha Allah waxaan rajaynayaa ka wada hesheen axbaabtayda haddii aad nagu cusub tahay soo dhawo please subscribe haddii aad horey inuu joogto ka hesho muuqaalka like garee asxaabtaada iyo eheladaada usii share garee wixii fikradaan xagga commentiska igu soo qora fikradihiin waa ii muhiim waan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan aad mar walba ila socotaan fariimin isugu jira dhiirigelinta iyo ducada jazaakumullahu khayr qaabkaas ayuu ugu dambeyn kusoo baxay quruxda badan leh wixii feedback waa idinka rajaynaa insha Allah xagga commentiska waad ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan jazaakumullahu khayra assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu muuqaal kale xiiso badan oo inoo xigi doono muuqaalkan inshaa Allahu tacaala